runtii muddooyinkan ba loo wada ducaynayay faadimo buraanbur ilaahay xifdiyo awlaadeedii ayaa hore looga qaatay iyadoo umushay haddana canugeedii sideedaad ayaa la qaatay sheekh xuseen faarax imaamka masjidka rinkabi arrintan ayuu ku guda jiray dadaalkeedana waa uu joogay markii hawshan dhacaysay falkan ilmaha lagu qaadanayna waa uu joogay sheekh xuseen soo dhawow walaal xudayfi waan dhaawahay alxamdulilah waxaa laga yaabaa khadka markii uu telefoon soo galo inuu baxa baa dhici karta marka ka raalliho insha allah arrinkaas waa tahay sheekh xuseen sidee wax u dhaceen arrintan gabadhan walaasheen ah warbixin gasay بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka ugu horeysa dadka walaalaha ay dhageysanaya dal iyo dibadba waan idin salaamaya assalaamu calaykum arrinkani waa arrin aad iyo aad maaragtay murugo u leh ilaahay waxaan uga baryayaa biasmaa wasifaati lculya in ilaahay subxaana wa tacaala walaashaas ilaahay subxaana wa tacaala iyo walaalka gabadha dhalaba ilaahay subxaana wa tacaala labadaba murugta ilaahay subxaana wa tacaala allaha ka qaado way jirtaa arrinkaas arrinka faadumo arrin muddo soo socday buu ahaa alxamdulilah magaalada stockholm bay usoo guudhay markii ugu horeysay oo qolada kamuunka ay la xiriirtay qolada socialka aad bay usoo dhoweeyeen alxamdulilah waxaana loo sheegay in maaragtay ilmaheeda ay haysan doonto waa ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa laakiin shalay ayaa wax badan isbedeleen goobjoog baan ka ahaa way ila soo hadashay qolooyinka iyaga carruurta qaateena waan is aragnay waana ka wada hadalnay arrinkaasi waxaa lagu saleeyey dacwadii hore ay carruurtii ilmihii deganaa magaalada maaragtay muxuu ahaa ay kasoo guurtay ayaa sabab u ahaa marka sababahaasaana ilmihii loo qaatay waa tahay canugan dhashay ma cisbitaalka ayay ugu yimaadeen oo ay ka qaateen ha isbitaalkay ugu yimaadeen way joogeen marka faadumo meesha isbitaalkay joogtay alxamdulilah anaa marka qolada maaragtay meesha aanu degannahay socialka la hadlay una sheegay inaan isbitaalkaan joogo waxay ii sheegeen inay maaragtay isbitaalka imaanayaan saacadaasna imaanayaan waa yimaadeen laba dumara bay ahaayeen waan wada hadalnay hadal dheer baana dhex maray laakiin iyagu waxay wateen qorsho ah inay carruurtaasi ay qaataan sababtaa waxay yidhaahdeen warbixinaha ay soo gudbiyeen kamuunka ay deganeed ayaa waxayd warbixino maaragtay khatar ah oo maaragtay arrinkaas baana maaragtay iyaga arrinka hore isaga bedeleen micnaha degmadii marka hore kasoo guurtay ayaa warbixin kasoo gudbisamaya ha warbixinta waxay ka timaaday degmadii hore kasoo guurtay iyo qaybtii xanaanada ayaa waxay usoo gudbiyeen kamuunka aanu degannahay arrinkaasi saacado badan bay iyagu ay maaragtay say ii sheegeen ay ka shirayeen dhinacyo badan isla fiiriyeen iyagana xiriir bay la soo sameeyeen taasi ayaa keentay inay yidhaahdaan annagu arrinkan maadaama uusan yahay waa nuga adag yahay waxaanu qaadanay in sharciga la yidhaahdo LVO aan maaragtay ilmihi aan ku qaadano ilaa iyo maaragtay guddoomiyaha maaragtay dhinaca siyaasadda u qaabilsan degmooyinkan aan degannahay uu qalanka ku duugay arrinkaas ayaa sabab noo ahaa ayay ku tilmaameen marka waxayna yidhaahdeen maadaama arrinkan emergency yahay berrina aan isku nimaan oo maanta ahayd inaan maaragtay wixii imaanaya wixii kale aan ka wada hadalno waa tahay laakiin sheekh xuseen canugan yar ee dhashay bina yidhaahdeen soo ma ahayn in la nuujiyo canugii walaal waa arrin horta aad iyo aad maaragtay murugo u leh oo maaragtay naxdin leh qof walba oo maaragtay damiir leh ama maaragtay ama qofku rab ha ahaado aan dareemaya maaragtay xataa maaragtay dadkii isbitaalka ama maaragtay ama ka shaqeynaya shaqaalaha ahaa iyaga xataa ay saameyn ku wada yeelatay laakiin iyaga xataa dadka qaadanayay xataa way muujiyeen laakiin waxay yidhaahdeen waxyaalaha ay soo gudbiyeen oo maaragtay oo aan rabin inaan maaragtay dhinacan meediyadan dadka halo sheekh xuseen ما مقشاد هلو شق سفي عن كل صعنا هاي هروت هروت وحن كعصرنا دتك وعاي شيخ حسين انا وعيتان كجوجيان ان شاء الله هاي marka alxamdulilah dadkii dhan baa warbixino iyo raadinaya marka waxaan wuxuu xagee baan maray adigoo raalli ah waxaan maraysay markii gabadhii la yimiday ilmihii ay ku yiraahdeen
waan qaadanaynaa oo aad tiri ilmaha inay nuujiso oo hala joogaana aad tiri ha ما شاء الله waan isla soo qaadnay sababta wuxuu sharciga dhigayaa oo sharciga Suudaan ka mid ah oo qodobka aan soo qaatay ka mid ah in hooyada iyo ilmaha meel in lagu xareeyo in meel maaragtay horay oo dad badan oo isaas ugu dhacdeen aan uga shaqeeyay in meel meeshaas lagu iyaguna ay baaritaankooda ku bilaabaan laakiin iyagu waxay ku andacoodeen oo arrinka ahaa sababta waxa waaye waa sharci dawladeed dhibaatooyinka ay maaragtay ka yimaaday dacwada iyo waxyaalahaas ayaa waxay keeneen arrinka annagu waxaanu arnay emergency haddana ma geli karno sababahaasay keeneen marka isbitaalka xataa waxaan sii joognay ugu yaraan ilaa iyo maaragtay 2 saac ku dhowaad ayaanu sii joognay waa tahay marka hadda ilmahaas yaa gacanta ku haya ilmahaas dad baa loo geeyay ay leeyihiin dad khibrad u leh baan u geynay bay leeyihiin oo maaragtay xataa iyaga kamuunka ka tirsan xataa carruurta dhalada ku jira maaragtay xanaaneeya sida ay noo tilmaameen waan jecleen waayo waa arrin aad iyo aad xanuun u badan qof walba oo dee kollay damiir lena uu dareemayo oo aan maaragtay aan laga sheekayn karin marka maadaama waxyaalahan ay soo gudbiyeen ayay maaragtay iyagu ku andacoonayeen ay sheegayeen oo ah maaragtay kumuunkii hore ay deganeed ama degmadii hore ay deganeed ay soo gudbiyeen waa tahay marka degmadii hore warbixintay ka soo gudbiyeen ma idiin sheegeen oo ay arrinkan keenayo in xataa ilmo dhashay hore laga qaato way sheegeen arrimo maaragtay khatar ah dee horey ay u sheegeen ama maaragtay ama ay waalidka ay ku tilmaameen iyo carruurtii hore oo dacwadoodii waxyaalo badan oo isku jira walaal marka ugu horeysa walaalaha maaragtay na daawanaya waan ka raali gelinayaa sababta taleefankayga awalba soo iska mashquul badna ayaa haddana arrimahan jiraan oo dad badan soo wacayaan walaalaha waan ka raali gelinayaa marka waan u sheegnay inay arrinkan maaragtay ay isku dayaan sidii ay maaragtay hooyada iyo ilmaha ay meel isugu geen lahayn maadaama aan horeyna aan uga shaqaynay marka iyagu waxay ku andacoodeen anoo raba inaan sii guda gelin maaragtay arrimaha jira oo maanta aan kula hadlaya xataa kulan baan annaga iyo waalidka aan wada yeelanay iyo qolooyinkii wayna tilmaameen waxay yidhahdeen maadaama waalidkaan horeyna aan aqoon dacwooyinkana laga soo gudbiyey annagu waxaan rabnaa inaan maaragtay annaga iyo waalidkiina maaragtay oo iyagii waxaan dhahnay inaan maaragtay utreen inaad idinku si khaas aad arrintii aad u bilowdaan oo baaritaan ah marka insha allah khayr badan baan ilaahay subxaana watacaala ka rajaynaynaa waayo waxa qadiyaddu waxay ku lug leedahay carruurtii hore oo la qaatay iyo kelimooyinkii iyo hadalladii iyo dhinacaas sanvikan oo magaaladan aan hadda aynu joogno wanaag baa na dhex maray laakiin wanaaggii iyo in maaragtay ilmihii la siinayay waxaa bedelay arrinkan gadaal ka yimaaday walaal xudayfa waa tahay adigoo aad u mahadsan marka waalidkii ma la kulantay carruurtan dhasha faadumo iyo odageedii iyo ehelkii maxay dareemayaan arrintood waa sidee waan kuu sheegayo waalidka waan goobjoog baan ka ahaayo qofkii ugu horreeyey ay maaragtay ay soo wacaan baan ahaa oo maaragtay arrinkaas joogay iyo aniga iyo walaal cabdirashiid oo isagana khayr badan allahaasi isagana khadka ku jiray oo maaragtay muxuu ahaa dhinaca soshaalka iyo maaragtay heer sare ka joogay arrintan dacwadana aniga isagaan isla wadnay iyo looyaradooda laakiin anigu waxaan ahaa shakhsiyan qofkii ugu horreeyey ay la soo hadlaan waana u imaaday waan is aragnay maantana waan is aragnay dee waa dareemi kartaa waalid ilmihiisii laga qaaday oo sheekh cusenow arrintan muddo ayay soo jiitamaysay gabadhan qayladhaanteedii dunida meel kasta ayay gaartay dhibaatada haysato meel kastana waa laga hadal hayay arrintan goorme ayay idin soo gaartay markay stockholm timid mase hore oo la socoteen horey baan ula socday ilaa iyo intii ay sanvikan ay gabadhu ay maaragtay arrinteeda dacwadeeda ay socotay dhowr jeer baan aniga cabdirashiid annagu aan tagnay oo maaragtay waqtiganaga iyo juhdiganaga aan ku bixinay hataa intays arrinkan dhicin waxaa jiray ilmaha labada waaweyn in maaragtay gurigooda lagu soo celiyo afarta yaryar iyaga xataa kulankii u dambeeyey oo bishii juun dhacay oo samarkaas soo galay waxaan isla afgaranay in maaragtay muxuu ahaa la bilaabo in wada shaqayn maaragtayna waalidkii iyo maaragtay muxuu ahaa iyo waalidkii iyo carruurtii marka arrimahaas oo dhan baa jiray tan kale oo ah in ilmaha caloosha ku jira taasina waa horey baan aad oola socoteen oo dee iyadaaba ka hadashay marka wada shaqayn badan baa nala socday juhdi badan baanu gelinay looyaradu way ku jireen wax walba waa lis imtixaamaya dad muslimiina baynu nahay
إلهي وحلي حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تدكم وحي أمريين إن هذا إلهي كلام ري ولا امتحان قبل أن يفهم كان أن وحن أورانك لا امتحان إلهي سبحانه وتعالى وكل داعي ومع ذلك وأنا ضد ما شاء الله مركز في رسي الصبر إيه دلقات تربضا له وحن كلو أن أنيجا أن ماركتي فرصة أن كفاية سنية aan rabay walaalaha inaan usoo maaragtay aan usoo jeediyo walaalayaal waxaan kusoo gabagabayn lahaa hadalkii markii la qaadanayay gabadha aabihii gabadha dhale uu yiri oo dhagteeda maaragtay iyo qalbigayga kusoo dhacayay maadaama ay markii gabadha la qaadanayay aan waqti badan aniga iyo qolooyinkaas la wada joognay hal eray buu yiri eraygaas oo ah inuu yiri maaragtay haddaan maanta aan ahaan lahayn qaran Xuseenow dhibkan inaguma dhici lahayn waa arrin run ah oo maanta markaad fiirisid ama Hargeysa joog ama Boosaaso joog ama maaragtay ama Garowe joog ama Muqdisho ama Kismaayo meel walba aad joog maanta waxa waaye dadka Soomaaliyeed xaqiiqiyan way ku dhiban yihiin meel walbana waxa waaye dhibaato ka taagan qarannimada iyo dhulkanaga aan iska burburinay oo aad hadda arkaysid xataa inaysan maaragtay aysan wax natiijo ama lagu farxo aan la helin ama wadaad noqo ama maaragtay muxuu ahaa ama ku baarlamaan ku jira noqo ama ku madaxweyne ama ra'iisul wasaare sheeg أمام الله سبحانه وتعالى جل وعلا بريت ما أنت قيامه والذين ويدين دونه ويقف بالرعية سإله سبحانه وتعالى وويدينه شعب كصومالي وكوبا بأيين وكوبا هدلينهين صوم هذا كرن وحيالها أصلا وحسوا دول كاجي أو أنا أديكم ما أنت أذن ما ركتم حوا كود جنين النظام السيستم لهن كشخصيا المبادرة أولاقاتي ده الدولة دول اللي هي أنا إرادي ما حد يلصق حرتين دولة باب الليدين قرن باب الليدين أنكو إرادي باجري ما مركي لفيريو مركا وح ما أنت كل عي ولا شيء ما ركتي فاضمه إلهي محمود إلهي سبحانه وتعالى الله بركيه ووح قف والباء كل عكا وحسيدر أو كم ذا dadku hadalla badan inay iska yiraahdaan dayac baa jira iyo saan baa jira iyo waxyaalo aan loo baahnayn inay markaan khadadka ay ku hadlaan waayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala qof walba uu imtixaamaya imtixaankaasana la wada maraya waalidkan ilmahoodu waa jecel yahay maanta waalid maanta ilmihiisa maaragtay dayacayaan maanta waayo waa wax maanta waa waalid walba wuxuu jecel yahay horumar buu u jecel yahay wanaag buu u jecel yahay billahi alaykum waxaad fiirisaan dadkaas hadalladaas ku hadlaya oo qaarkood idhahaya Xuseenow maxaasan u dhacday ma u maleynaysaa maanta waalid guri cidla maanta fadhiya sariirihii ilmihii iyo wixii dhan wada fadhiya damiirka maanta adiga ku siinaya maanta maxay tahay arrinkaana ma aha hooyooyin badan iyo waalid badan carruurta laga qaatay alxamdulillah dad badan baan soo celinay tan laakiin waa imtixaan min Allah subhanahu wa ta'ala marka waxaan dhihi lahaa hadda hooyada gurigeeda may ku soo laabatay mase wali cisbitaalka ayay joogtaa ما إسلام إسلام شلي بقى وان محوها أنا سوق هذه يدا يماركتي أو ذي بقى أنا جورجا يماركتي استوخم كده جنتهي أنا جا مارك جاي الحمد لله ودريم كرا كل واقف إيمان له إلهي سبحانه وتعالى هويو ودريم كرتان كل رجو مركي لفيريو وحوجا حنون بدن دمركا وحركينا فوشي حنوك بدنات بسامرتي وحركينا مريم وهي تري يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا بتري انت markay maan iska dhintay tiraaday waad arkaysaan reer bal wada leeyahay nin walba xaasbu leeyahay markay maanta ay sariirta ay saaran yihiin oo laga dhalinayo siba khaasatan dadka qurbaha ku nool oo maaragtay xaasaskooda garabka ka fadhiya markay ay hooyooyinka maaragtay ilmaha laga dhalinay waa dareemaysa xanuunkaas iyo maaragtay dhibaatadaas ay soo kacday hooyadaas ilaahay waxaan ooga baryeynaa imtixaan bay martay in Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala oo imtixaankaas ilaahay subhanahu wa ta'ala ka faydo waxaan rabaa walaalayaal ilaahay aynu u barino biidna ilaahay subhanahu wa ta'ala نيو أيان قبا كما قوسني وقف إيمان له ما أنت نقول كنا خير بدن بإله سبحانه وتعالى كرجيني وأنت هذا الرجل واسدة مركا أرنت مظاهرات كانوا جورهن إن مظاهرات وحبه هرتمطره مظاهرات وحمطره إلا إنه حسيب حماية ما أجيه صوتها مظاهرات مركا حقوق كام كان أدراتين إذا أيوم مظاهرات كوي ماذا صوتها أوحى أيوه هذا يكون أندعوني يعني أما ضد كان يركمون كان وكمون هذا وقفي عن مركا لفيريو حقيقيا أو ما ركتي محوها أنه عن منطقة أن دجنا هي لكن وحسامين كوي شيء وما رك تأثير كوي شيء وبدل كوي ماذا وحياله كمون كهراء وأنا نيجو جو كأها وحالة هذا أنا عن السعودي أي ما ركتي أيه وحكي بدلي مركا مظاهراتكو وحبا ترميه وبحبها وذا الشقين يجي على الشقين سنة شرعيا يجي يسود جستي لين عمارة محاكمته يلين عس إن لمره إن إلهي سبحانه وتعالى لسحره إن ما ركتي دعاء إلهي سبحانه وتعالى الله بريه أيام ما ركتي وحول بمظاهرات كثيرا مظاهرات ما هذه وجوه الرئيس مركي عن سميني وجوه الرئيس أو خبرنا كقاضني أنا ورقني إن ولا الآمن وما أنت ما ركتي وجوه الرئيس عروت هذا لقاطي مركا تاسبا مركا جرت حديثي
وقرتي هذه هذا ما صنتاي شيخ حسين maxaa hadda kula dardaarmaysaa dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya أول شيء waxaan horta isku dardaarmaynaa Allah subhanahu wa ta'ala cabsidiisa qofku wuxuu ku badbaadi karaa fi dunya iyo fi al-aakhirah ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala cabsidiisa waxaan kula dardaarmayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ama ay dhageysanayaan walaalayaal midnimo ayaa guul lagu gaaraa midnimo ayaa wanaag lagu gaaraa midnimo ayaa horumar lagu gaaraa midnimo ayaa lagu noolaadaa waxaan oran lahaa inaad wada midoowdaan baa horta wax walba ka fiican waxaan kaloo saan hore u soo sheegay aan oran lahaa dadka maanta maaragtay ama Soomaaliya ama maaragtay muxuu ahaa gacanta ku haya ama maaragtay ama maamula meel walba ay joogaan ama haddii ahaan leeyahay kuwa wadaada ah ama haddii ahaan leeyahay kuwa dawlad ama haddii ahaan leeyahay kuwa maaragtay dawladda dhaxa ama dadka baarlamaanka jooga Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala aynu ka baqno shacabkan ilaahay waa idin weydiin doonaa biin ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta gobolaysi iyo qabiil iyo wax kale waxba tarimayo ilaahay subhanahu wa ta'ala dad muslimiin oo naga dhigay huwa samaakumul muslimiin ba Allah subhanahu wa ta'ala dad walaala abu naga dhigay waynu aragnay waxa la rabaa gurigaaga inaynu wada hagaajisan ayaan looga baahan yahay hadduu maanta guriga aniga ii hagaago adigana waa ku hagaaga hadduu maanta iga xumaado guriga adiguna waa ka xumaaday aan isu soo duceyno oo gacmaha aynu isqabsanno walaalo baynu nahay siiba khaasatan dadka qurbaha jooga waxaan oran lahaa midnimadiina iyo wadajirkiina maaragtay muxuu ahaa ku wada midooba ilaahayna waxaan ooga baryaynaa hooyadan iyo hooyooyinka la mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu murugada ilaahay subxaanahu wa tacaala ka faydo qof walba waxaan oran lahaa inaad maanta qalbigaaga aad gelisid adigoo booska walaal Faadumo maanta taagan haddaad hooyo tahay iyo haddaad aabba tahay inaad maanta aad gelisid ayaan oran lahaa waxaan oran lahaa nin walba ilaahay baanu ka rajaynaynaa naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala lagama quusto iyagana waxaan kula dardaarnay as-sabr inay sabraan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo tadarruc in noqdaan waxaan waa imtixaanka ugu adag oo ugu dhibka badan waxay tahay qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa alla ka fidneeyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala nagama fidneeyo Soomaaliya midooba Soomaaliya dantiina ka fakara Soomaaliya qarannimadiina raadiya Soomaaliya isu tanaasula taas ayaa dan ku gaaraysaan waana mahadsantahay walaal Xudayfi aad iyo aad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa Sheekh Xuseen Farax oo ah imaamka masaajidka Rinkibi oo runtii arinta Faadumo Baraambur hooyada Soomaaliyeed ee dhibaataysan iyo qoyskeedaba ku jiray waana la murugoonayna insha Allah meel kasto aan joognana waa soo duceynayna in Ilaahay kurbadaasi raxmad ama naxariis kale Ilaahay oo ugu bedelo insha Allah dibkan uu ka dulqaado hadduu Allah wasar leh ogolaado Sheekh Xuseen aad iyo aad u mahadsantahay sida quruxda badan leh aad barnaamijka igala qayb qaadatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay aan isu soo duceynay insha Allah aad u mahadsantahay Sheekh Xuseen adiga mudan walaalahana waan ugu cudur daarayaa inuu maaragtay khadku go'o sababta teleefankayga waa iska barakeysan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala Allah idin barakeeyo fi dunya wal aakhirah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Xudayfa adigana waa mahadsantahay walaal وعليكم السلام ورحمة الله